munaasabad qado sharaf ah oo uu soo qabanqaabiyey Suldaan Axmed Maxamed Olhaye Suldaan Salmaan oo lagu soo dhaweynayo ugaas Cali Xaaji Yuusuf oo dhowaan lagu caleemo saaray gobolkaasi Saaxil ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. xafladan qado sharafta ah oo aad loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin, ugaasyo, madax dhaqameed, aqoon-yahan iyo marti sharaf haldoorka salaadiinta ee Somaliland. munaasabadan qado sharafta ah ee lagu soo dhaweynayo ugaas Cali Xaaji Yuusuf oo ka mid noqday dhowaan bahda dhaqanka ee Somaliland kaasoo dhowaan lagu caleemo saaray gobolkaasi Saaxil ayaa uga mahadnaqay beelweynta iyo salaadiinta Subeer Awal iyo haldoorka halkan fadhiya ee ku soo dhaweeyey magaalada Hargeysa iyo qado sharafta ay u sameeyeen. salaadiinta iyo waxgaradka iyo haldoorka beelweynta Subeer Awal ayaa iyaguna halkaasi Ilaahay uga baryey in uu Allah u fududeeyo ugaaska xilka dhowaan loo doortay ee ugaas Cali Xaaji Yuusuf ee gobolkaasi Saaxil. gebagabadiina munaasabadan qado sharafta ayaa ku soo dhammaatay sidii loogu talagalay. salaadiintii iyo waxgaradkii, ugaasyadii iyo madax dhaqameedkii kale ee ka soo qayb galay ayaa iyaguna halkaasi ugu duceeyey ugaaska cusub islamarkaana ku soo dhoweeyey bahda dhaqanka ee uu ku soo biiray. Cumar Aw Cali, Bulsha TV.